aynu ka hormarnay faahfaahin dheeraada ayaa ka soo baxaysa qarax miino oo lala beegsaday siyaasi caan ah oo ka mid ah taageerayaasha madaxweynihii muddaxileedkiisu dhammaaday maxamed cabdulaahi farmaajo aadna u naqdin jiray dhaqdhaqaaqii ay sameynayeen midowda musharaxiinta. qaraxa ayaa ka dhacay degmada Wadajir waxaa lala beegsaday siyaasiga Cabdulaahi Sheekh Xasan xilli uu ka soo baxay masjid uu ku soo tukaday salaadii Jimcaha. wuxuu sidoo kale wararka intaasi tilmaamayaan in siyaasiga Cabdulaahi Sheekh Xasan uu dhaawac ka soo gaaray qaraxaasi miino oo la dhigay meel aan ka fogeyn masjidka uu ku tukaday salaadii Jimcaha. dhaawaca Cabdulaahi Sheekh Xasan ayaa la dhigay cisbitaalka Tigfeer ee magaalada Muqdisho halkaasi oo lagula tacaalayo sidii wax looga qaban lahaa xaaladiisana ay ku mashquulsan yihiin dhaqaatiirta. Cabdulaahi Sheekh Xasan ayaa ka mid ah siyaasiyiinta xisbiyada siyaasadeed furtay islamarkaana taageerayaasha madaxweynihii hore ee dalka Maxamed Cabdulaahi Farmaajo safka hore uga jiray, isagoo aad ula dagaalami jiray ama difaaci jiray dadka siyaasadda madaxweyne Farmaajo diidan islamarkaana sheegi jiray inay yihiin kuwa qaswadayaal ah. weli ma jirto koox sheegatay dhaawac loo geystay siyaasigan caanka ah, hase ahaatee waxaa soo baxaysa in ay u badan tahay ururka Al-Shabaab.